السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب قيمة بدن كحرين channel كنا يوتيوب سهلتي isku soo noqod wanaagsan wali waxaan ku guda jirnaa barashada Adobe Photoshop CC 21 casharkii kan ka horeeyay waxaanu ku soo qaadanay sida la soo degsado iyo sida computerka loogu shubo casharkeen labaad maanta waxaanu ku qaadanaynaa create and open sida file amarta loo abuuro maarta project cusub iyo sida loo soo furo project hore ugu jiray okay casharkii kan ka horeeyay hadii aadan soo daawan fadlan soo daawo wajigan hore ama maarta computerka ama Photoshop markaad soo kiciso wajigan ayaa ku soo muuqanaya halkan waxa inooga muuqda waxyaabihii ugu dambeeyay ee aan maarta soo isticmaalnay ama halkan aan ku soo qabanay shaqooyinkii ugu dambeeyay adigu marka hadii computerkaaga Adobe ama Photoshop ku cusub yahay kale halkan way marnaanaysaa oo ever ay ahaanaysaa okay anigu marka hore ayaan isticmaalay oo casharkii kan ka horeeyay thumbnailkiisa ayaan ku diyaariyay logoyin iyo waxyaabaha marka aan u baahano inaan soo furno ama document cusub waxaan ku dhufsan karnaa ama aan dooran karnaa halkan ay ku qoran tahay create new halkan waxa lagu abuuraa document cusub halkanna document hore u jiray ayaa lagaga soo furaa new inoogu dhuf marka create new ayaan leenahay okay create new marka aan soo dhahno marka xogaa waxaan dul istaagayaa daaqadan ayaan dul istaagayaa sharaxadeeda daaqadan ayaan xogaa dul istaagayaa okay daaqadan halkan recently ay ku qoran tahay badana waa maaragtay waxa ku jira shaqooyinka ugu dambeeyay aad qabatay hadda maaragtay shaqadii ugu dambeysay aan qabtay waxa ahayd thumbnail aan ku diyaariyay cabirkiisana waxa ahaa 1280 iyo maaragtay times 720 recently marka badana waxa maaragtay gala shaqooyinka ugu dambeeyay ee aad qabatay sayfad halkanna waxa gala badana cabirada aad adigu save gareysatay tusaale waxbaad diyaarisay wixii markii aad diyaarisay cabir ayaad dooratay cabirkaas marka hadii aad maaragtay aad u baahan tahay ama hadii aad save gareyso hadhow halkan ayaad ka helaysaa halkan photo halkan waxaad ka helaysaa waxyaabaha la xiriira maaragtay sawirada iyo cabiradooda size-yada sawirada hadii ay ahaan lahayn portrait iyo hadii ahaan lahayn landscape joke ama chief hadaba waxyaabaha la xiriira photo ayaad ka helaysaa halkan print ay ku qoran tahayna waxyaabaha la xiriira warqadaha haday noqon lahayd A4 letter A5 iyo cabiradooda A4 iyo adi warqad iyo wixii la xiriira ayaad ka helaysaa halkanna art and illustration waxyaabaha sawirada la xiriira ama posterada iyo waxyaabaha ayaa ka helaysaa cabiro sample ah ama cabirana way wataan halkan ay ku qoran tahay web waxaad ka helaysaa maaragtay web designerska hadii aad u baahan tahay design inaad u sameyso website iyo kale ayaad helaysaa web large web medium web minimum web small hadba waa maaragtay website iyo wixii maaragtay la xiriira website-yada ayaad halka ka helaysaa halkanna mobile ay inoogu qoran tahay waxaad ka heli doontaa cabirada ama face-yada mobile-ka hadii aad u baahan tahay inaad mobile-ka aad waxaad u diyaariso sidoo kale waxa maaragtay weliya Apple Watches-ka ama smart watches-ka iyagana sidoo kale waad ka heli kartaa halkanna film and video waxyaabaha la xiriira video-ga iyo filmanta hadii aad u baahan tahay inaad design aad u sameyso kale halka ayaad kaga helaysaa okay markii aan imaano markii inaan intaynu maaragtay aanan ka sii gudbin daaqadan xogaa halkan aan sharaxaad ka yara bixiyo halkan ugu horeysa meeshan waxa lagu qoraa magaca shayga ama projectiga aad rabto inaad diyaariso magaciisa ayaad maaragtay ku qoranaysaa tusaale anigu hadda sample aan iraahdo create and open tusaale ciwaankayga ama projectiga aan sameynayo magaca halkan ugu bixin lahaa halkanna waa maxay projectiga aad sameynayso cabirada aad u qaadan lahayd balaciisa iyo joogiisa halkan hadii aan furno waxa ku jira pixel inches centimeter millimeter points because waxyaabahan waa cabiro la qaato marka badana waxaan isticmaali doonaa maaragtay ama badana marka la joogo design waxa la isticmaali doonaa centimeter iyo meter ayaa la isticmaali doonaa maadaama meter uusan ku jirin isticmaalka waxaan booskiisa isticmaali doonaa centimeters
cabirka aan badanaa maarta qaadan doona pixel iyo inches iyo iyagana maarta waa la isticmaalaa laakiin anagu waxaan ku badnaan doonaa centimeter-ka ayaan ku badnaan doonaa halkan marka orientation waa warqadu inaad maarta joog aad ka dhigto cabirka marka aad doorato inaad warqadaada joog aad ka dhigto halkan waa maxay landscape gif inaad ka dhigto halkan waxaa laga qaataa resolution-ka tayada design-kaaga ama warqadaada ama board-kaaga ama wax allaala waxaad diyaariso uu kusoo bixi lahaa badanaa 72 ilaa iyo waxaa la qaataa 300 ayaa la qaataa okay halkan waa maarta waxaa ku jira color mode ayaa la yiraahdaa halkan waxaa ku jira maarta bitmap grayscale RGB color CMYK lab color waxyaabahan color badan ayaa ku jira inta color ayaa ku jira laakiin anagu badanaa waxaan isticmaali doonaa ama badanaa waxaa laga isticmaalaaba colorka la yiraahdo RGB iyo CMYK color RGB oo red green blue okay iyo maaragta blue iyo halkan CMYK oo cyan magenta yellow color black colorka marka RGB iyo CMYK maxay ku kala duwan yihiin RGB badanaa colorkan waxa loo isticmaalaa ama waxa la isticmaalaa waxyaabaha aad ku soo bandhigaysid baraha bulshada poster iyo waxaad diyaarsatay oo aad u baahantahay inaad ku soo bandhigto baraha bulshada waxaad isticmaalaysaa RGB laakiin haddii waxaan ay yihiin shay machine ama daawacad maraya loo baahan yahay in la daawaco waxaad dooran doontaa color mode-kaaga aad ka dhigan doontaa CMYK kala ayaad ka dhigan doontaa kadibna create ayaad leedahay oo documentiga waad abuureysaa okay warqadaada waatan noocan ay ku noqotay oo qaabkan ay warqadaada u soo baxday waa maarta wixii warqada iyo wixii la xiriiraya face-kan hore waan sharxi doonaa casharkeena labaad halka ayuu noogeegya sida ayuu nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu fadlan haddii aad ku cusubtay channelkeena subscribe inoo saar mahadsanid like-tan nagu dhiirigeli wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faalooyinka